kusoo dhawaada daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 5 November sanadka 2023 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin haya caawa waxa kamid ah tirada dhimashada reer Falastiin oo 9800 gaartay wili waxa qasal lagu garaacay bambaanooyin ay Israa'iil ku tumayso dalka Soomaaliya waxa la soo warinayaa 11 qof inay ku dhinteen magaalooyin kala duwan kadib markii fatahaadahan ay meel walba gaareen waxa la xaqiijinayaa in qoysas ballaadhani iyo bulshooyin dhami ay go'doosan yihiin meelaha luuq la yiraahdo oo kale shaqaale ka tirsan kuwa gobolka Banaadir oo shabaabnimo loo haysto maxkamadooda ayaa maanta la galay Puntland khilaaf baa wili ka taagan wasiirka warfaafinta wuxuu u jawaabay go'aanada isimada 60 jir iyo 70 jir iyo 80 jir ha u daba fadhiina reer baadiye xoolihiisa dhaqanaya ha u daba fadhiina xeerka xoolo dhaqatada Puntland lagu maamuli maayo xeerka xoolo dhaqatada Puntland lagu maamuli maayo xeer dawliya oo casrigan maanta la joogo la jaan qaadaya oo laga tashaday oo mujtamacu ka tashaday oo dhalinyaradu ka qayb gashay oo haweenku ka qayb gasheen oo civil society iyo looyarada ay ka qayb galeen baa lagu maamulaya dalkan wasiirkii hore ee cadaaladda Puntland isna wuxuu qabaa fikir kale waxaan aaminsanahay anigu sida dad kale oo badan ay aaminsan yihiin qaabkii dastuurka loo maray inuu ahaa shaar nin leeyahay uu tolanayo oo uu leeyahay aniga halay sameeyo qayladaan gada laga soo sheegayo fatahaadahan ayaana galay degmooyin badan oo gada ka mid ah bardweyne digniin baa laga bixinayaa odayaasha dhaqanka Dhuusamareeb oo baaq ka soo saaray odayaashii iyo culimadii dhawaan lagu laayay magaalada Dhuusamareeb iyo qodobo kaleba aan ku bilaabay Israa'iil wili waxay bambaanooyin la dhaxaysa magaalada Gaza goobihii ay tiri dadka ka qaxan ayay hadda garaacaysaa waxa jira 30 qof oo iyagoo qaxaya cirka laga duqeeyay dhimashadu hadda waxay gaartay 9800 oo qof waa saacadihii u dambeeyay dhaawacyada qaar ayaa laga cabsi qabaa inay dhintaan maadaama isbitaalada qaar uusan shidaal jirin dhaawacyadaasna khatar ay yihiin oo aanan loo gurman karin Hamas dhinaceeda weerarada dhulka ayay wadaa askarta laga dilay Israa'iil todobadii bari ee u dambeysay ayaa 30 qof hadda gaartay dunidoo dhanna waxay hadal haysaa mashaqadan hoogan iyo halaagan Gaza ay ku hayaan ciidanka Israa'iil wahagaag dhul badan oo Soomaalida ah fatahaado ayaa ka dhacay gobolka waqooyiga bari dawladda deegaanka Soomaalida iyo gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliyaba dhimasho ayaa laga soo sheegayaa tirada rasmiga ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday waa 8 qof waa dadka fatahaadahan ku dhintay kumanaan kale way barakaceen warkii ugu dambeeyay waxa sheegay ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa hadda la xaqiijinayaa in dadka Soomaaliyeed waxyeello ay dhimasho ku jirto ilaa dhowr iyo 10 qof inta la xaqiijinayo ay soo gaadhay oo ka soo gaadhay deegaano kala duwan oo ka mid ah deegaanada Jubbaland sida Doolow Baardheere Garbaharey Luuq Buurdhuubo ilaa iyo Jamaame waxa la xaqiijinayaa in qoysas ballaadhani iyo bulshooyin dhami ay go'doosan yihiin meelaha luuq la yiraahdo oo kale oo labada dhinacba biyihii ay ka xigaan oo doonyo loo kireynayo hadda waxaanu ka baaran degaynaa bal sidee helikobtarriyo wax loo heli karaa sidee doonyahan la buufiyo loo heli karaa hawlo fara badan ayaa miiska noo saaran dhinaca gobolka waqooyiga bari ismaamulka Mandheera 3 qof baa ku dhintay arday baa kamid ah kuwaas soo dhawaan u imtixaankii sideedaad ka bogay barasaabka ismaamulka Mandheera ayaa ka waramaya Suddenly we have witnessed loss of 3 lives due to these floods, including an elderly mother and 2 students who have recently completed their KCPE exams. wahagaag fatahaadaha wararkooda ayaan ku jirnaaye digniin baa laga jeedinayaa beledweyne oo inuu webiga fataho ah beledweyne waxay caan ku tahay fatahaado sanado badan oo isdaba joog ah ka dhacayay digniinta reer beledweyne loo jeedinayo sidan ayaa loo dhigay anagoo ummadda ka wakiila maamul gobol ahaan waxaan rabnaa inaan digniin siino bulshada reer Hiiraan digniinta koobaad waxa waa webiga khatar oo soo wada khatartiisuna way muuqataa aad bay khatartiisu muuqataa sidaa darteed dadka webiga hareerihiisa degan hantida ku haysto waxaan u sheegaynaa walaalayaal waxa la badbaadiyo hadaa la ku horeeyaa laga fogaado waxa
kaloo jira annaga haddii aan nahay maamul gobol ahaan waxaan diyaarinay meelo taagag ah oo dadka ay ku samata baxaan amnigeedana la sugaayo hadduu ilaah yidhaahdo taasoo aan jecelnahay hay-adda maareynta iyo masiibooyinkana inaan iska kaashano ee dowladda federaalka sidaa daraaddeed markay wax dhacaan wax aruuri baabuur soo dir xagga waxa ku gootoomay xagga waxay noqoto waxaa nooga fiican ixdiru qabla alwuquuc intayna wax dhicin horteed inaan ka diyaar garowno sida hadda niyada aan ka qabno biyaha saakay in aan iskaga filannahay oo naga wareegan doonaan oo waxba noo gaarsiinaynin waxba ayna gaarsiin doonin caqiideysana laakiin laysa alxadaadatu kal xamaa'iq doqonnimo ma aha ina digtoonaan qabno digtoonaan inaan qabno ma aha doqonnimo ma aha laga soo bilaabo xuduudda gobolka Hiiraan ilaa iyo Hirshabeelle webiga hareerihiisa wixii waxa uga digaynaa inay hantidana ka dheereystaan ilmahana kala baxaan hadaa la ku rooyahay intay ayna goorta gobolka Gado asnad aafaa ka taagan magaalooyinka Doolow iyo Baardheer ayaa ugu daran qayla dhaantan ayaana la muujinayaa maanta waxaan ahay qayla dhaan ka ahay gobolka Gado degmada Luuq ilaa iyo Doolow runtii maanta wax la fiirsan kara ma aha waxaan rabaa madaxweynaha way maqlayaa ra'iisul wasaaraha way maqlayaa ra'iisul wasaar ku-xigeenka way maqlayaa dadkii waa baaba'een dadkii aad u baaba'een dadkii biyaha kala xiray dadkii doomana lagu daabulaya doonta calaa ruux laba doona meesha taallo dadkii intii doonta lagu soo qaaday inta dhammaanaysa badan dadkii gurmad ma haystaan waxaan rabaa gurmad loo sameeyo si degdeg haddaan laga gaarin runtii waa webi luuq webi ay naqatay haddaan laga gaarin kastiyaro ku hartay oo aan dooman looga soo daabulin diyaaradahan looga soo daabulin oo xarga aan loo raadinin oo xarga aan lagu soo daabulin runtii dadkii waa dhammaasho hadda ugu dambaysay meel go'doon ayaan doon raashin waxa lagu geeyay iri runtii maanta qayldhaankayga ma aha mid fadhiya ma aha waxaan ahay xildhibaan federaalka loo soo doortay gobolka Gado loo soo doortay degmada Luuq u soo dhaartay shacabka degan degmada Luuq wahagaag wararkii fatahaadaha intaasaan oga baxo maxkamad muqdisho ku taalla maanta waxaa la keenay 11 qof oo maamulka gobolka Banaadir ka tirsanaa shabaab inay xiriir la leeyihiin ayaa la tuunsan yahay dhageysiga dacwadan sidan ayay u dhacday maxkamaddu waxaan ka codsanaynaa qodobada aan ku soo eedano qodobka 6 faqradiisa 2 iyo 3 waa uu soo tababartay nigaas 4 bilood oo tababar ku jiray qodobka faqradiisa 3 waxay sheegaysaa qofkii ka mid noqda ee tababarta marka qodobka 15aad abaabulkaas oo rabi waa nin u jilbaasha ku jirto macna waa nin u heeganaa inuu jabhad noqdo macna oo degmooyinkan dagaalada dhacayo dhan ka qayb qaato laakiin waxay dhahan sirdoon aad ku fiicanta maadaama shiiqaata marka qodobadan ku soo eedeynay qodobka 6 faqradiisa 2 qodobka 12aad qodobka 15aad 18aad 21aad 25aad xaqiiqatan waa uu ku dhacay qof wadaada oo shiiqa waan laga malaysan karin oo dhiiga dadka Soomaaliyeed inuu ka macaasho darteed u taga saako ee muaskar u noqday ee diiday inuu sirdoon noqdo jabhad inuu noqdo doortay waa ninkaas sana afraad asna waa cajiib kale sana afraad naanistiis maxaa waaye naanistiis waa tabliiq ereyga tabliiq maxaa waaye warkaalaya salaada soo dukanno warkaalaya ku soo biir jamaacada war mal cishaa noo imaada xusn muslimka idin akhrine waa shaqadiis laakiin tabliiq waxay u noqotay gabad waa uu ku gambanay si uu u faafiyo fikirka argixisada sidoo kale wuxuu soo sheegi jiray qaraxyada ka dhaca deegaanka Daarusalaam iyo Carafaad asagoo tabliiq sariigaayo ciidanka agmara qaraxi dhaco gudbina eedasanaas marka waxa uu ku hugsan yahay waa diin shara waa shaati diineed oo gashan yahay waa qawaarijo inta taagan waa shaati diineed oo gashan yahay waxa uu ka shaqeynayaa waa ummadii Soomaaliyeed la xasuuqay dhibaatada gaartay ayuu ka shaqeynayaa eedasanaas wahagaag haatanna Puntland iyo khilaafka la isku haysto doorashada laba dhinac ba hadda loo kala jabay
وحكومة بوتلان oo doonaysa doorasho qof iyo cod ah mucaaradka iyo isimada dhaqanka oo iyaguna sheegaya in 60 iyo 60 hore lagu noqdo waxbana aan laga bedelin xilliga doorashada iyo qaabka loo qabanayaba wasiirka warfaafinta ayaa maanta hadalla adag oo jawaab u ahaa go'aanadii isimada jeediyay 60 jir iyo 70 jir iyo 80 jir ha u daba fadhiina reer baadiye xoolihiisa dhaqanaya ha u daba fadhiina xeerka xoolo dhaqatada Puntland lagu maamuli maayo xeerka xoolo dhaqatada Puntland lagu maamuli maayo xeer dawliya oo casrigan maanta la joogo la jaan qaadaya oo laga tashaday oo mujtamacu ka tashaday oo dhalinyaradu ka qayb gashay oo haweenku ka qayb gasheen oo civil society iyo looyarada ay ka qayb galeen baa lagu maamulaya dalkan golayaal sharciya buu leeyahay dalkani siyaasadda golayaasha sharciga bay soo marayaan siyaasadda furan doorashada furan amniya baynu rabnaa dalkan in lagu maamulo oo siyaasad degan oo lagu soo hirto dadka Soomaaliyeed iyo reer Puntland ba ay ku soo hirtaan oo lagu caanamaaro oo lagu dego dhinaca kale wasiirkii hore cadaaladda Puntland ayaa isna fikirkan qaba waxaan aaminsanahay anigu sida dad kale oo badan ay aaminsan yihiin qaabkii dastuurka loo maray inuu ahaa shaar nin leeyahay uu tolanayo oo uu leeyahay aniga halay sameeyo si dawlad markaas awoodii dalka loogu boobo shircadda waa maslaxa waay anu maslaxa aan u arkay qawaacid islaamiga iyo fiqhigana waa idin daliishaday marka dastuurku wuxuu u baahan yahay consensus inuu ku yimaado public debate buu u baahan yahay dastuurka marka la sameeyo adduunka sida ku cad waa wax sanooyin qaata ama bilo laakiin muddada uu qaatay waynu dareemaynaa arrin boobsiisa ayay ahayd wahagaag daqiiqadii wararka ayaad weli naga daawanaysaan odayaasha dhaqanka magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta baaq soo saaray nabad bay ku baaqeen waxayna sheegeen inay tilaabooyin qaadi doonaan kadib baaritaan dheer iyo kulamo u socday beesha ceer oo looga arsanayay dilkii foosho xumaa ee ka dhacay caasimadda dowladda Galmudug ee Dhuusamareeb 13 Oktoobar 2023 odayaasha dhaqanka culumadiinka energaradka beesha ceer waxa maanta oo ay taariikhdu tahay 5 November 2023 ay soo saareen qodobadan hoos ku xusan waxaan raaligelin ka bixinaynaa dib u dhici iyo daahitaankii aan ka dib dhacnay warkan waqtigiisii taa oo sabab u tahay inaan xaqiijino dhacdadii fajaca iyo argagaxa lahayd sidii ay ku dhacday iyo cidda ay ka dhacday waxaan rabnaa in halkan aan ka cadeyno dilkii foosho xumaa ee caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ee ka dhacay 31 Oktoobar 2023 looguna geystay dad ganacsato ah culumudiin ah oo aan waxba galabsan oo ka dhacay beesha ceer gaar ahaan ceer bari si hoosana oo uga dhacay beesha Yabadhowr kace uuna yahay fal waxshnimo ah oo aan laga tashan oo ay geysteen dad wax magarata ah waxaan ugu tacsiyeenaynaa ehladii qaraabadii iyo saaxiibadii beesha Riix Xaaji Saleymaan 12 qabiil ee dowladda Galmudug iyo qaranka Soomaaliyeed arintan waxshnimada ah oo aysan mudneen inay ka dhacdo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaan leenahay Allah samir iimaan hanaga wada siiyo dadkii qaaliga ahaa ee halkaas inooga baxay jannatul firdawsna iyagana Allah ka waraabiyo dadkii dambiilayaasha ahaa waan doonaynaa waana soo qabanaynaa annaka oo la kaashanayna dowladda Galmudug 5 waxaan ballan qaadaynaa annaka oo kaashanayna laamaha amniga ee kala duwan inuusan falkan oo kale caasimadda Dhuusamareeb ka dhici doonin ilaahay idinkiis wabillahi tawfiiq daqiiqadii wararka baahinteennii fiidnimo intaas haynoo joogto tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibs send money dirista lacagaha withdraw money bixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibs pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibs global xawilaadaha ibs mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga ibs goor kasta iyo goob kasta معمي
weli hore ma u maqashay applicationka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaad sidoo kale ku diri kartaa adeega T Plus bangiga Sombank iyo xawaalada Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban ilaahay baa caafimaadka bixiye hamogaanin isbitaalka Healthgate Hospital dhakhtarkii carruurta kii cudurrada guud dhalmada iyo ka warqabka hooyada dhimirka iyo maskaxda dhakhtarka lafaha caafimaadka indhaha intuba waa ku diyaar weliba carruurta markay dhashaan dhalooyinka lagu koriyo ayuu isbitaalka Healthgate ku caanbaxay isbitaalada waddankan ka jiraan waxaa ugu sarreeya level 6 oo ah levelka 6 Healthgate waa levelka 5 qalliinada degdega iyagana waxaa u diyaaraa dhakhaatiir 24 saac heegana shaybaarka baaritaanada cudurrada waa casri oo waxaa yaala qalab la hubo nadaafaduna waa inoo muhiim oo haddaad bukaan ahaan u jiifato iyo haddaad saacado kooban joogtaba Healthgate waa deegaan nadaafadda u saaxiiba Healthgate waa xarun caafimaad xaasha lilaahi waa xaqiiq oo soo booqo isku daawee oo isku baar ilaahayna kala saaro isbitaalkan Healthgate qalliinka hadda maxaan suubinaa oo latest oo laser lithotripsy la marka qalliinkaas maxaa waaye qofka isagoo jirkiisa meelna laga jeexin ayaa dhagaxaanta laga soo saaraa hamoogaan Healthgate Hospital oo ku yaala jidka weyn ee xaafadda Islii laga galo soo horjeedka Islii North Police Station isgoyska ama roundabout-ka Muratina Road